kacaanka maxaa qaldanaa qaab dawladeedka والله xilligaas kacaanka wax ma khaldanayna qabaanay ma kacaankii xornimadii dadkii kala dagaalamay dagaal qaldan ummadii geliyey kadibna deegaano ka mida dalkii Soomaaliya ku duulay diyaarado ku duqeeyay oo dhibaatadeedii ilaa hadda taagan tahay miyaad leedahay waxba ma qaldan American tagay qolo weeko la yiraahdo dhalatay meel xaray isku xiran weeko waa la gubay meesha inta loogu tagay aa la gubay waxaana la yiri iyaga isgubay nin Rodney King la yiraahdo oo madow ah baa niman cadaan ah waxay ku garaaceen Los Angeles waxaa ka kacay kacdoon bililiqo boob jinni markii la qaban waayey ciidanka militariga loo diray xabadaa lagu bilaabay dhowr boqol markay dhimatay bay dadkii mudaaraadka sameynay kala xarreen militarigana laayay dadaa dayuurad lagu garaacay run weeye dadaa la laayay run weeye laakiin dal kastoo adduunka ah hal ma ogolan karo madax banaanadiisa iyo midnimadiisa in lagu cayaaro dawlad adduunka oo ogol ma jirto laakiin yani ma waxaad u qiildayaysaa Janaal Cabdiraxmaan in xikmad xumo meesha xikmad iyo waxyaabo kale lagu dayi lahaa in dadkii xoog oo aan loo baahnayn loo isticmaalo diyaarada lagu duqeeyo maatidii naagihii caruurtii niman jabhadoo soo weeraray dartii jabhadii qiildayay hadafkeedu ku ah jabhada inay xukunka qabsadaan waxa annaga waa ogeyn inay xukun qabsadaan ma ahayn mabaadi'dii jabhadda waxay ahayd xukunkeena qabsadaan laakiin marka waxaad leedahay dalkay difaacayeen aa leedahay ciidankii jabhadda iyagoo hubaysan oo dalka inay kala gooyaan diyaar u ah bay magaalada soo galeen dawladdii markaas jirtay ma waxaad kula talin lahayd inay soo kala cararaan si u yeelaan oo aan dadka loo xasuuqin yuusuf dawlad kastoo adduunka joogta waxay mas-uul ka tahay middan iyo tan Ethiopia midnimada in la ilaaliyo ayaa loo helay maad leedahay waxay mas-uul ka tahay midnimada dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda ayay iyadaa mas-uulka ah taa haddii dadkii dhibaato ka weyn midnimadii la gaarsiinayo ka waran iyadii laba dhibaato in la gaarsiinayaa Yuusuf dawladdan hadda jirta waajibaadkeeda number 1 mataqaana inay dalka sovereignty-giisa iyo midnimadiisa iyo horukaciisa la lisawaa hadday jirto cid midnimadaas halis ku ah waxay xaq u leedahay inay isticmaasho kulli maa uutiya allaha min quwa si midnimada loo ilaaliyo awood kastay leedahay xataa haddii naagaha iyo caruurta la leynayo aniga naagaha iyo caruurta la ma qabo aniga waxaan kaala hadlaa sida qiyaadada ay u fakaraan waxaa waajib ku ah dalka midnimadiisa sovereignty-giisa dhul cirbad dawladda inay ilaaliso mas-uulka ah laakiin qaabkay u ilaalinay iyadaa laga rabaa waa gartay marka waxaad leedahay taasi ma ahayn qaladaadkii u weynaayo oo dhacay ma ahayn waa ka mid u ahaa laakiin yaa khasbay inay saas loo isticmaalo markii xukunkii wax laga siin waayey oo niman la marooqsaday oo ma jirto ama qoys dad badan u bateen soo dadku markaas xaq uma leh inay ayagun dhahaan annaga xukunkii waa la marooqsaday waxaa tabriiq fiiri jabhadeena oo halkaa yimid xagee ka yimideen Ethiopia ka yimaadeen badle oo mingistu uu ku soo ambabixiyey ma la socotaa ninka soo ambixina mataqaana waa Cornel Mengistu Soomaaliyana kuwa kale ambabixinayso Ethiopia u diraysa ayagana run waaye
laakiin kuwa waa dagaal laba dowladood ninka Soomaaliga ah inuu xamar ka tago Itoobiya u duulo waxa ka iman kara nooc legitimate dhulkiisa maxaa haysata laakiin ninka Soomaaliga ah ee xamar ku soo duulaya oo mingistu uu ka soo qaadanaya maxaa sharciyadu haysta waxba xilay naagay caruurtan difaaca dadkayga la liida lagu guray guriyooda loogu dhacay maxkamadda Yuusuf yaali halkan aan maanta joogno xamar dagaalkii 4 bilood ah maxaa ku dhintay dad badan ku dhintay maxaa sharciyadu loo haystay dadkaas la laayo kuwaas ay ahaayeen aan sharciba qaban laakiin dawladda sharci ha qabto ma qof Yuusuf meel loo raaco la aqoon banaanahay intaan jabadana ay dhahno dadkina layno maya isku mid maahan dawladda iyo jabhad waa run mas'uuliyadda way qaadayaan ayagana waa loo haystaa xasuuqi nin kastoo xasuuq geystay midii Hargeysa ka dhaxday xaq darro waaye midii xamar dadka lagu laayna xaq waaye maanta afgooy wax ka dhacay ma la socdo wax la isdhici karo maxaa ka dhacay maanta afgooy maxaa ka dhacay ka warqabta oo maqash waa qaraxyadii socday mid ka mid ah ama sidarada kuwan yaa xaq u siiyey inay ay ubudwaaba qaraxi sameeyaan oo 800 qof dilaan yaa xaq u siiyey isgoyskan dad ku laayaan waa gartay waa u imaanaynaa aan ku noqonna Hargeysa wixii ka dhacay naaga iyo caruur iyo dad rayada oo muwaadiniina in la xasuuqo cid xaq u leh ma jirto cid kastana waa in lagula xisaabtamo dawladnimana laguma noqon karo ciddii isku dayda inay ku noqoto caruurta human shield ha ka dhiganin nin kastoo daciifa waa ka dhigtaa hadda maxaa ka socda Suuriya xiraaq maxaa ka socda